Assalaamu calaykum dhalinyaro waan idin salaamay waxaan aad uga xumahay maanta inaan mar kale idin kula soo noqdo barnaamijka Easter aad baan uga xumahay Easter inaan xaqiiqadiisi ka daba tagnaan soo ogaanay waxaan aad uga xumahay in aan asxaabta la wadaagay anagoo oo waliba cadeemaha aan haynay markaas ay 50% ahaayeen inuu waxaan markaas real yahay iyo inuusan ahayn Newster.net sad u joodaanba hadda balancegeyga waxaa ku jirta $106 laakiin waxaa ka horeeyay oo aan horey oo la baxay ama u dalbaday ilaa iyo 3 jeer oo hore sida halkan uga joodaan 7 bisha Febraayo waxaa la baxay $176 $176 wali bendin ay ku jirtaa waa aragtaa waxa ku xigay oo 15 hadana aan dalbaday maadaama markii hore aanan fiirinin halkaan ay ku qoran tahay waxaan bixinaa ugu yaraan $90 waxaana lagu bixiyaa inta u dhaxayso 15 bisha ilaa 29 inta u dhaxayso 15 bisha ilaa 29 yaa waxaan is iray leeyahay waxaad qaladay xisaabtii oo xillan ku habooneen ee dalbatay markaan ku celi hadana markaan ku celinay 15 bisha waxaad arki kartaan $93 yaan hadan la baxay isagana waa bendin wada aragtaan 29 bisha Febraayo maadaama ay 29 ku dhamaanay 28 ay ahayd hadana waxaan isla isagana fiiri waa 29 bishi sidoo kale waxaan la baxnay $110 guud ahaan lacagta wada arkaysa inta ay tahay kulligoodna waxay ku wada jirtaa bendin taas oo macnaheeda ku tusinaysa inaan wax jirin wax hore u soconaya wayna jireen daliilo kale oo iyagana laftirkooda sheegayay shaki ahaanshaha in arrintan ay suuragal ahayn macnaha ay sax ahayn laakiin waxaan isku daynay inaan xaqiijino oo aan ka war doono marka Easter muhiimadda waxa waaye waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo asxaab badan oo waxa jirtay wal rajo ka sii qabtay inuu suuragal yahay Easter inuu payment samaynayo laakiin marka aan fiirinay waxyaabo badan oo emailada iyo dokumentiyada u qoran aan fiirinay dhamaantood waxa ay sheegayaan waa in Easter uusan ahayn wax real ah Easter.net is not real the reality is that Easter.net is a vague scam so mar dambe qofna kulama talin doono fiidiyoada qaarkoodna oo walba hore uga cudur daaranay in aan ka xunnahay in Easter kala aan la wadaagno asxaabta walina waa arkaysaa guud ahaan lacagta Easter $493 oo intaas jiraan kala bixiyo waliba $100 iyo xogaa dollar ay ku sii jiraan waa arkaysaa $106 haddii 25kii ay weli kasii reebaana wuxuu noqon doonaa si halkan kaaga muuqato $81 marka taas waxay ka dhigaysaa in Easter barnaamijkan la yiraahdo uusan ahayn wax real ah oo uu yahay fake oo uu yahay tuugo oo uu yahay meel lagu lugoynayo dadka arrintan Soomaali kaliya kuma dhicin haba u badnaadaan si Afrika iyo Asia labada wadan ha u badnaa laakiin adduunka intiisa kale dad badan ayaa arrintan ku wada dhacay qof kasto lacag raadinaya ogsoontiina meel walba uu galaya si uu lacag u helo marka Easter arrinkiisa isaga waa saas oo hadeer waxa weeyaan dib looga noqonaa ma jirto intii hore u samaysatay rajo badan ka qabtay inay suuragal tahay inuu marun hagaagana waxaan leeyahay rajadaas la soo duubo aadan aga xunnahay Easter inaan asxaabteeda la wadaagay anigu kulaba qaastan asxaab badan inaan la wadaagay aadan uga xumahay kulabo kuwa kale ayaa badan insha Allah taala oo ayagana asxaabta la wadaagi doonay kuwa kale la wadaagna laftirkooda oo ah meel lacagta laga sameeyo website iyaguna waa ay jiraan haddana waxaan soo gelinayaa video aan uga hadlayo Facebook website-da aadka ugu fiican oo waliba kuwan iyaga ay tahay shaqo toos oo aad qabanaysid kaliya laakiin waxay u baahan yihiin in qofka uu helo aqbalaad kadib aqbalaadaas hadii uu helo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu si fiican u shaqeysan doono si nadiif ah website-da qaar kamid ah asxaabta waan la wadaagay inta kalena waan soo wadaa waxaan hadda dabka noo saarno hadda in video gaan gadaashiisa insha Allah soo dhigi doona website-ka la yiraahdo Validately
website isagana aad looga shaqeysto kambani badan oo caan ahna ay ku jiraan ay kamid yihiin oo ay wax ku bixiyaan waxna la qaataan waxoogana ay ku testgareystaan websitekaas Validate la yiraahdo videogan midka ku xiga ayuu noqon doonaa insha Allah tacaala haddaan soo dhigayo waad arki doontaan isagoo waxaan intusinayaa tilaabo sida loo sameysanayo kadibna waxa ku xigi doontaa in lagu soo aqbalo hadii lagu soo aqbalana waxa weeyaan hore baad ka bilaabanaysaa shaqadaada oo markaas si toos ah ku soo xiranaya iyaga email ku soo diraya inta kadib waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo muhiimadii aan ka lahaa barnaamijkayga waa Yester inaan ka digo kuwa kale la midana way jiraan marka waxa aan soo ogaanay oo aan soo afjarnay maalin walba mid website aan soo afjarnaa kan waa kii ugu dambeeyay noqon doona insha Allah tacaala oo isagoo fake ah ama sheet dambe website dambe oo fake aan asxaabta la wadaagno ayuu noqon doonaa kan Yester ayaan ku soo afjarnay insha Allah tacaala waxaan u sameyn doonaa asxaabta kale laftirkooda si ay ugu dignaadaan tilaabooyin cad ama ay fahmi doonaan qodobo dhowr oo aan ku ogaanay website-yada dhamaantood scam-ka ama fake ah aan ku ogaanay ama aan ka sameynay listi oo aan website-ka ku aragnataa aan ku aragnaa inuu yahay fake taas insha Allah tacaala iyadana aan list ahaan asxaabta ugu soo dhigaya halkaas oo ay arki doonaan marka insha Allah tacaala intii hore ugu jireen hore isaga diiwaan gelisan insha Allah iska kansasho iska saarto rajada ka qabaan in lacag laga heli doono Yesterna insha Allah tacaala idna meesha lagu soo afjaro waan idin salaamayaa waxaad iga sugtaan waa kuwa kale oo isaga xigay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh